السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومر kale iyo muuqaalka xiga channelka cilmi side fadlan hadii ay tahay markii ugu horeysa soo booqato channelka subscribe saar gambaleelkana furo si aad u rukumato dhammaan muuqaalada aan soo gelino laakiin noo saar si aad noogu dhiirigeliso maanta waxaan qaadan doonaa cashir kamid ah cashardeena taxanaha maadada xisaabta classka form 4 chapter 1 waxaan ku jirnay example-kiisa koowaad waxaan ka soo qaadanay A wuxuuna ka koobnaa A iyo B iyo C waxaynu harsanaa B iyo C insha Allah xisada ayaan ku gabagabeyn doonaa B waxa inoo marayso inoo qorneed cos 87 oo ku dhacsan cos 93 laga jaray sin 87 oo ku dhacsan sin 93 waxaan rabnaa ka shaqeyn xisaabta hadda waxay u qoran tahay qaab ballaarin waa soo koobeynaa oo waxaan u qoraynaa habka soo gaabinta laakiin intaanan gelin ka hor inaan ku xusuusiyaa qaacidada guud maxay ahayd labadii cos israacan formulaha wuxuu noqon doonaa cos labadan values 87 iyo 90 iyo 3 waxay u taagan yihiin A iyo B marka xeerku wuxuu noqon doonaa cos A plus B ayuu guud ahaan u taagan yahay coska xeerka sababta u dhaxay tahay hadii qaybta la balaariyo minus ku jirto qaybta soo gaabinta plus ay noqonay marka cos la joogo laakiin sin marka la joogo calaamadu waa sidii isma bedelayso meel ay ku kala duwan yihiin ayaa ka mid ah intaas waxay la mid tahay markaas waxaan dhahayna waxay la mid tahay xeerka waxaan dhameystirayaa cos wuxuu noqon doonaa cos A cos B laga jaray sin A sin B waa xeerka guud ayaan ku xasuusinayaa hadda xeerka ayaan dabaqaynaa marka qaybtan ayaan haysanaa waxaan u qori doonaa qaybtan suuqa ayaan u qori doonaa waxaan ku sameyn doonaa adoo meesha ka amban qaadaya waxay noqon doontaa tirada waxay noqon doontaa cos A meesha ay kugu qoran tahay waxaan ku bedelaynaa cos A meesha markay xisaabta saan oo kale tahay saan la rabo in loo qoro qaabkee loo sameyn doonaa marka qaybta waa haystaa qaybtan la mid ah waxaa u baahan tahay kaliya inaad hesho qaybtan waxaan ku sameyn doonaa marka waxaan dhahayaa cos A plus B si aan ugu qoro waxaan qoranayaa cos A waxaa ka qaadataa isla qaybtan ka qaado cos markaa joogto A halkan ka qaado B halkan ka qaado oo waxay ku noqon doontaa A iyo B markaan dhaho oo kan aan dhaho yacni waxay la mid tahay 87 iyo waxay la mid tahay 93 halkaas ayaa A iyo B ka heli kartaa waxaan dhahayaa cos 87 lagu daray 93 labadaas tiro marka isku keento bracketkana waa muhiim lagama tagi karo bracketka laga tago xisaabtu way qaldamaysaa halkaas waxaa ku heshay cos 87 lagu daray 93 waa soo gaabinaynaa waxay noqon doontaa marka daan soo gaabino waxaan u qoraynaa isku dar labadaas tir waxay noqon doontaa cos 180 cos 180 haddii aad scientific-ga caadi u geliso waxay noqon doontaa jawaabteedu waxay noqon doontaa -1 halkaas waxaa noogu dhamaanaya qaybteena B answerka B na waa halkaas ayuu ku idlaaday B jawaabtiisa waa intaas waxaan u guda galaynaa hadda qaybtii kale ee C insha Allah C waxay noo qoran cos 5/2 ay noo qoran intaan wax kala sameynin 5/2 waxaan ka dhigaynaa sum and difference wax la isku daray ama la kala jaray laakiin halka waxay noo sahlan inaan ka dhigano laba tiro oo la isku daray inaan ka dhigano sida daraadeed waxaan dhahayaa marka aan rabo inaan ka shaqeeyo waxaan ku bedeli doonaa waxaan u sarifayaa horta 5 ka bilaab waxaan dhahayaa 2 plus waxaan ka dhigayaa 3 oo hadii la isku daro waxay noqon doontaa 5 isla garanay labaas tiro waxa inoo hari doona 12 waxa lagu sameynayaa labada meel waa ku hoos qoraysaa waa xeerka fraction sida uu qabo hadii sareeya aad laba u kala saarto hoose laba u kala saarto inaad laba qortaa duplicate ka dhigtaa halka marka joogto bracketkiisa inoogu xir marka bracket noogu xirto waxa inoo raacaysaa cos ugu horeen shaqadeen bartas ay ka bilaabanaysaa ku falgalkeen wuxuu noqon doonaa inaan ka dhigo 5/2 inaan ka dhigo sidaas marka inta sameeyo halkan qaybtan waxay u taagan tahay A qaybtan kale waxay u taagan tahay B waxay naga rataa laakiin intaan talaabo qaadin ka hor inaan isku yareyno si isku yareynayna halkan waxa uu qaybinayaa 2 halkan waxa uu qaybinayaa 2 ayadoo ay noqon doonto jawaabteedu waxay noqon doontaa waxay ku noqon doontaa cos dib u qoro marka dib u qorto hadii kor hoos 2 u qayb dhanka koowaad waxay noqon doontaa by hoosna 2 u qayb waxay noqon doontaa 6 lagu daray dhanka kale aad waxaan kor hoos waxaan leeyahay 3 u qayb hadii aan korna u qayb 3 hoos 3 u qayb waxay noqon doontaa kor waxa kaga soo haray by ayaa kaga soo harayso xagga hoose waxaad ku qoraysaa markaas ayna 3 ayaa u qaybinaysaa xagga kore by la hoos dhigo waxay ku noqon doontaa 3 u qayb 12 waxay noqon doontaa 4 halkaas
waxaad ku heshay tiradii oo qaabkii ay kugu qorneed qaabkaaga saaran u qoran. hadda weli waan sii bedelayaa. waxaa jira xeer guud oo sheegaya in bay ay la mid tahay bay inay la mid tahay 180 waa dhammaan markii bay waxaa la hal numberka waxaa loo yaqaanaa radian number aan lahaa 180 u dhiganta markii degree ahaan loo sarfo. marka kan waxaa ii fiican inaan hadda ku bedelo 180 aan u qaybiyo 6. halka waxaa iga soo bixi doona marka haddii aan dhaho 180 u qaybi kadibna 6 u qaybi iska garan kartaa waxaa kaaga soo baxaya 30 degree. halkan haddii aan 180 u bedelo 4 u qaybiyo waxaa kaaga soo baxaya 45. hadda xisaabta waa xalin kartaa waxay ku noqotay xisaabtii aad garanaysay. waxaad raacdaa formulaha cos ayaad raacaysaa. formulaha cosna marna balas waa marna minuskii hore waxaan ka soo hadalnay horaan uga soo hadalnay. sida daraaddeed waxaan dhihi doonaa a iyo b xeerkaaga ku dabaq marka hore u wadkan waxaan rabaa inaan sarifo. wuxuu noqon doonaa cos a booskeeda waxaan ku bedelayaa 30 oo ku dhacsan cos b ayuu noqon doonaa. cos b bedelkeeda waxaan ku bedelayaa 45. intaas waxaan dhihi doonaa halkan balas ayaa tal cos la jooga waxaan dhahayna laga jaray. kadib waxaan dhihi doonaa sin a waxaan ku bedeli doonaa 30. waxaan raacinaynaa sin a sin b ayaan raacin doonaa. sin b na waxaan dhihi doonaa aan qorayna sin b waxay u dhigantaa sin 45 noqon doonta sin 45 ayay noqon doontaa. haddaba intaas markaad joogto mid walba qiimiis ku bedel. cos 30 oo kale wuxuu la mid yahay haddii aad taqaana jadwalka xifdisanta waa okay. haddaad xifdisnayn waxaa jira barnaamij yar oo aan hore ugu sheegay cashirka koowaad ku sharxay ee aad ku fahmi karto cos 0 30 45 60 ilaa 90 faraha adoo tirin kara sida lamida sin ayaan kusoo sheegay tan waan kusoo sheegay. haddii aadan jadwalka xifdisnayn calculator inta badan kuma anfacayo cashirka koowaad soo daabo waxaana kugu daraya ama kugu muujinaya qaybta descriptionka linkigiisa ayaan kusoo dhigay halkaas ayaad ka daawan kartaa. haddii aad hore usoo daabatana waa sida loo baahnaa laakiin inaad taqaano oo soo daawata ayaa fiican. marka 30 markaan joogo qiimaheeda wuxuu noqon doonaa oo cos la joogo wuxuu noqon doonaa kanaan bedelaya qiime ayaan ku bedelaya. 30 markii la joogo qiimihiisa wuxuu noqon doonaa square root wuxuu noqon doonaa 3/2 ayuu noqon doonaa qiimaha markii aan qaato cos 30. waxaan ku xijin doonaa cos 45 wuxuu noqon doonaa asna square root 2/2 ayuu noqon doonaa. intaas markaan joogo waxaan dhahay lagu daray labadan bracket waxay u taagan yihiin way isku dhufsay ilaa cos iyo cos isku dhufashaa ka dhaxaysa markaan laga jaray calaamadii aan ilaawin calaamadeedu waa laga jaray. waxaan ka jaraynaa kadib sin 30 waxaa qiimaheedu uu noqon doonaa waa 1/2 sin 30 qiimaheedu waa 1/2 bracket ayaan soo gelinaya anoo ula jeedo multiplication symbol calaamad ku dhufashaa ugu jiro ay bracket kala sameey. waxaan u baahanahay sin 45 asna wuxuu la mid yahay square root 2/2 waa jadwal aad xifdinayso ama aad ka soo baran karto muuqaalkii ugu horeeyay aan soo gelinay okay oo fanfar ku saabsan. haddaba halka markaad joogto xisaabtaada hore u wad waan soo gaabinaynaa. waxaan dhahaynaa laba square root la isku dhufan doonaa. laba square root markii la isku dhufanayo guud ahaan waxaa laga soo qaadaa qaybta koowaad oo ka horeysa minus ka shaqo bilaabaya. markii laba square root la isku dhufanayo koow waxaa laga qaataa hal square root. kadib waxaan dhahay hor tirooyinka dhexda ku jira isku dhufan kartaa. waxaan dhahay 3 iyo 2 isku dhuf waxay ku noqon doontaa square root 6. halkaas ayaa ugu maarmi kartaa. hooseeyna laba hooseey caadi isku dhufasho fraction markii la joogo caadi la isku dhuftaa waxay noqon doontaa 4. marka halkaas marayo waxaan dhahay laga jaray waxaa laga jarayaa 1 iyo waxaa isku dhufanaya haddana qaybta kale ayaan aadaya waxaa isku dhufanaya horgala 1 kan iyo waxaa isku dhufan doona square root. haddii aan inta ku dhufto wax ma soo kordhiyo meesha ku dhufato 1 waa sidiisii. marka sidaa daraaddeed waxaa ku soo bixi doono square root 2 ayaa ku soo bixi doona over xagga hooseeyna laba hooseey caadi isugu garaac waxay noqon doonaan 4. haddii aad doonto bartas ay ugu tagi kartaa laakiin anagoo raacayna buugga sida uu u sheegay ama sharxaadda buugga qaadanayna ayaan hore usii wadaynaa. hooseey hadduu sameyn yahay waxaa laga soo qaataa hal xabo hooseeysi waxaa laga soo qaataa hal xabo. kadib waxaa sameyn doontaa hal xabo markaa soo qaata sareeyahan caadi usoo wada qaado waxaad tiraahdaa square root 6 laga jaray square root 2 waan answerka buugga kugu qoran. halkaas ayayna ku dhamaatay jawaabtii qaybtii C. haddii uu muuqaalku ku anfacay ama aad wax ka faa'iiday channelka subscribe inoo saar gabdhalka furo like